عرب أنا إذا كدب جي أخبار جدا بيسي إن كيس كان إن ما دام لبضن قف بنانك هذا الجوان لكن إلا معناته حبس جوري وكله ولودي إن مدي استعمالهم ولودي إن تسوى أيضا فايد هنا إن وحواي لوزين ولا ليال إن والسود داي أو حواي إن ضمينتي وحواي والله أقلادي لكن وديدي حواي إن حيتري يركع إلى السعودية وأنا والدي لها أو كشكو يدل لها مركب استولد إلى سو بحسناي مركا إنكاس بدبادي أنا إنكاس وإني ضمينته ساسيتري لكن سؤال ماشي تعالى وحواي نكاس أو أيضا للسعودية أو أصلا حبلها الجماعي أو يركي أو منطقة أو نساء وحواي أفر بالكورة حبسك صباح أو كيس كلا ومعناه وكوجلي وركل النساء إسقبس لك حبل ما أرين كلا واحد بستولد إمهن أرين كلا واي ولو حكم معنا حكم أكو بعد دور بلود حرنا أملينا والسود داي مركا إن أصو حتى لحد بلود ودمانين بلاد وفيرسو معناه وهذا كيس كان كلا كلا مركا نيجا ما بالسود داي كربو ولا جمد مين كرساس أو ده لوزين وديد هيدي نشاط لكن هذا واسعته أو لوزيني نشاط ولا قد عندنا معنا نكاس إنه سوبي كرين تقولنا إن أيها بيحكي كران هذين ربان أنت أفرت دور بال المحكمة ده لقى جاري معنا ما دام كيس كود المحكمة ده لوجري سلبنا ويسودا ده قداش وحكي صعدة أو دعوة وين صودا مركول على إن وحوي هرت لوزيني ساسواي إن متقنا وحوي النكاس يديد وحيتري وإلى بحر لكن هذا وحوي ما أنت بري ولا قد عندنا لوزيني نشاط إني أقلادان النكاس كتجانو أي صوب حنتاسنا وحوي واسعته ولا ليال إن وحوي إن بدي هذا إسكحد لايو ثم لا سيد بشرع كما يقانن لبا قبلود يكشك ضد وحواي أو شعبه أو وحواي عانوي كيس كان وحش شقاء كمالها المحلمة ماديو ديانيو مع مدحوينها وحاسبهم واسك الشيك وهو ضد كان شرع كما يقانن قانون كما يقانن كيس كان وكيس ويالو دقمده حمرجب دقمده حمرجب waxay leedahay taliye boolis ay leedahay dambi baari gooni ay leedahay oo si ay dhida ka socday leedahay balaad u fiirso xeelaliye ay leedahay oo markii oo kiiska la soo gabagabay degmada saldhiga xamrajab waxay u soo gudbinay xeelaliyaha warqada sii qaadayo oo maxkamad u gudbinayo war baanisha maxkamad waa la gudbiyay dacwada raxfaanka waa la gudbiyay habiyana codsatay shaabada lagu dhuftay balantina waa la qabtay kiiska meesha ku xiray luziina lawyer-keedana sidoo kale asagana kiiska waa qabtay hawsha isku dhamaatay waa kiis saas u soconayo way balaad u fiirso meeshan macluumaadaan shaqo ku lahayn meeshan macal taliye kala shaqo ku lahayn meeshan dawladda shaqo ku lahayn dadkan iska baadiyay muddo waa views kaasi waxa iska rabaan iska sheeganaa iska rabaan shariifka in hadlooy wax dawladda yiraahdo wax yiraahdo sida ku sheegayna sheekadu u dhacday saasay u socotaa degmada saldhiga xamarjab taliyaha booliska ee qaybta CID-da kadibna maxkamadda xilaaliyah waa intaas ma soo dhaafsan arintan taas ma fahanteen wax qabiil yiraahdana hadda kor idin sheegay ku cilna wax qabiil yiraahdo ma jiraan laba gabdhood is qabsaday waaye arinta ku dhacdana hadda kor idin sheegay hadda ku cilna hadda marka baarista sida u dhacay macna maadaama ay sheegtay reportiga in Luziin la dhageystay oo laga qoray macna habin laga qoray hadda marka baarista meesha maraysan idin sheegi doona si badan soo wada oo hadda meesha hoosh ku socoto maseer waa sheekada dhan maseer waa taas waa idin sheegi doona walaalayaal in Luziin waxa waaye in yarkaas waxa waaye weydiiday inay mataqaana waxa waaye baxdo ninkaas wixii waa ila baxa ninkaas waa ninka badbaadiyay waxa waaye in CCTV kamerada waa la soo wada degdegan insha Allah waxa waaye si kaleer la arkaa wax فيديو كلنا واجهته أو لوزينو كولس يرى السعودية الدوبي أو سكلا الدوبي لكن مقدوي تاسنا ويقريان وقتي اللي سوايان تاسنا فهمتين وعادي لا أفرد قلاش استعتق ما أفرد قامين فيديو صعنا يوان سيد لو قراعي هبي عادي لوزينو تيم كذا الدوبي لكن أنا يصيب دي كمان كهلينا أو كردو تان كهلينا لوزينو وحكي صباحي ميل لوقي كصباحي لوقاس وحكوا جنبن يركب أو هذا حيرانا نسا بستولة جماعي يركب دبي qofka gadaal CCTV camera ma arkayso nashaad waxa dhici karta kamerada oo ay wateen Luziina inay duubta dhici karto nashaad laakiin CCTV camera nashaad laga ma arkayo CCTV camera in sheega korka waxa laga arkaa kaliya waxa waaye Luziina iyo ninka la socdo soo baxay macna luuqa ka soo baxa oo meesha waxa badaa ka gamaa waa caada loo arkaa iyo Luziina ko soo baxday ku boodayso Luziina habiyo si socoto iyo kashka yarka kale oo macluumaadi oo wax isku dhahay intaas la waxay CCTV camera arkayso intaas ay arkaysaa bis taas ma fahanteen marka walaalayaal waxa waaye in Luziina waa soo boodaysaa cid la socoto iyo cid u dhowna ma jirto habi kaligeed iyo Luziina kaligeed way shab ala leeyahay gadaal looga imaada shab la leeyahay hab la leeyahay laga gaarsiina ma seeta laga gaarsiina saas la dhulka ku si dhaceysabo meel ay isku difaacdo ma haysato ayadana waa wareertay habi ayadoo dhulka ku si dhacaysa kashwaan ka soo orday soo baxsana ba afrax ba gamaa saddex ba kor u gamaa marka ninka kale waa ninka soo baxay asagan xabadaha gamaa kiiskaana waxa shuuta loo aaday wax kalena xabadaas way taas ma fahanteen marka habi walaalayaal waxa waa ayada reportiga qoratay ayada codsatay in maxkamad la aado wax heshiis diiday taasna maxkamadda laakiin confirm boqolkiiba boqol
luusina lama xiraayo waxaa ku dhacaya xukunka weerarkaasaa ku dhacay maxaa yeele dad naag markay maseerto ay gabar kale weerar ku qaado waxa waaye oo dhaawac weyn meesha gaarin xarig ma noqonayo ganaaxu noqonaa adduunyada Soomaaliya meel walba saas waay marka waxa waaye good news ugu fiican waay maanta akhbaarta oo ilaa hadda gaajisa booliska aan ka helay xogta in mataqaana waxa waaye saas waxa waaye maseerkaas ugu dhacay hadda waxay fanaan marka maseerka waxa walaa kashka iyo luusina wada socdeen xiriir lahayn waa isjeclaayeen muddo wada socdeen guuray ku ballameen kadibna waatay kala tageen kashka waa tuhabi ku laabtay inaa saaxiib la noqday kadibna guursaday markay kala dhamaanayeen luusina iyo kashka markay kala tagayeen kashka luusina wuxuu ku yiri haddaan adiga ku waayo aan ku guurso waayo lulay waxaan guursanaa habi kashka maanta waa nool yahay hadda been ka sheegay kashka maanta waa nool yahay hadda been ka sheegay wuxuu yiri habi aan guursanaa luusina meeshaas waa meeshay وين ازدقالسين بلاد وفيرس كاش كحرب انه لولي يقرسو لولي عروس وين iyo dhaqaala la isku qabtay macnaha lولي waxay aniga baabal ugu guursanaysa nishid iyo waxa macnaha xogaa lacag fiican wax shaqeysa camal sheeka saas waay kashkan wax saas ma haysan sidaas oo marka ay ku kala tageen habi uu guursaday habi iyo waa aragtay luusina dagaal ka dhaxay marka qiyaas marka adi marka qof walba hadii fiirsanayo qof adiga jeclaydeen oo sir isku wax kasta isku sanadeen qof adiga cadawaaga haduu uu guursado wax walba u sheega Soomaa meesha muuqaalkaas ma ku soo qortay in habi 1 million kashka balaad u fiirso waa dhaga hadalkii ugu dambeeyay waa 1 million kashka balaad u fiirso sir kastana luusina kashka waa ka haya jacayl maan dad isguursanay ku ballameen habi u sheegay meeshaas waa meesha buuq ka dhacay balaad u fiirso wax kala ma jiraan wax qabiil yaraad ma jiraan confirm boqolkiiba waay waa maseer waay taas ma fahanteen waxaa marka horeysa aad iyo aad ku xumaa horta waxa waaye in war been suuqa la geliyo la dhaho waxa waaye cadaalad ma jirto waxawaaye in boqolkiiba boqol in maanta in la soo daayo in gabadhan victimka ah ninka muuqaalkaas arko horta ka naxayo in anina waa arkay wata maanta idin sheegay haddana waxaa go'aansanay inaan muuqaalka waxawaaye suuqa la soo geliyo waan la soo geli doonaa in laba maalin gudaheeda dulqaadka sabarka badi insha allahu tacaala haddii ilaa yiraahdo in mataqaanaa muuqaalka waxawaaye in suuqa soo geli doonaa hindhiinna ku arkaysin shariifka beenbeen ma sheego gabadhan waxawaaye waa victim waay gabadhan waa dulman tahay waxawaaye in adeerta luusina beri waa la soo daynaa kiiska waxawaaye waa dhammaaday maxkamadiina waxawaaye anaga siduu warka nagu soo gaaray dad kalabo arbacada dad soo qoray iyo waxawaaye iyo beri anaan dhahay isniinta beri maxkamadooda waxawaaye galdacwadeedkii la qabtay macnaha marka anaga siduu warka nagu soo gaaray markaas waxawaaye galdacwadeedka waxaa u qaadanay iyo kuwa soo qoray arbacada in mataqaana markaas dhacayo no waxawaaye maxkamadda saf dheeraa lagu jiraa maxkamadda qalabka sida shuuta waaye maadaama meesha xabada ka dhaceen taqaana waxawaaye anaga weli labadan gabdhood waa loo naxariistay iyo kashka iyo dacwadooda waxawaaye 4 maalin loo qabtay inaa oo maanta bilaabanayso maanta loo xisaabiyay 4 maalin gudaheeda waxaa laga rabaa labadooda xiraaleha habi nin axmed cilmi laaya kiiskeeda hayo waa idin sheegi doonaa iyo ninka looyarka u qaban doona adeerta luusina markay soo baxda beri haddii la yidhaahdo 4 maalin inay isku soo diyaariyaan waay macnaha waxawaaye dacwada taqaana ballanta waqtigaas loo qabtay 4 maalin kadib kashka iyo wiilashas kale gooni waa maxkamadooda gabdhaana gooni isku shaqo ma ahan laakiin isku meel waay macnaha waxa waaye shuuta loo wada geey doonaa laba gabdhoodna loo kala qaadi doonaa taas waa idin faahina marka walaalayaal meesha wax qabiil la yiraahdo ma jiro meesha wax la yiraahdo mataqaanaa cadaalad ma jirto ninka muuqaalkaas arkay gabadhan waa u garaabi lahaa waxa waaye adeerteeda waa ku soo boodaysaa waxa waaye iyadoo sii socota weli way sii jeedaysaa si fiican u garaacaysaa wallahi bila ina beedi sheegay waa sababta keentay in jirkeeda waxa waaye nabraha hadda aad u soo baxa maxaa yeelay laba maalin meesha ku jirtay hadda maanta hore isbitaal looga geeyay maanta gabadhan waa dilan tahay haddana idin sheegay aad u dilan tahay gabadhan waxawaaye anaga waa diyaaranahay looyarka loo qaban doonaa waxaan luusina waxaa ku dhacayo maadaama muuqaalka anaa arkay aniga oo confirma waan idin soo gelin lahaa duqaadka badin inaa ku arkaysiine markayse u weeraraysa gabadhay ee u garaacayso waxawaaye luusina waxaa ku dhacayo xukun oo 1 sano ka yar macnaha iyo magdhow macnaha anagana diyaar u nahay meesha sharafna diyaar waa inay gabadha ka bixiso waan laga bixi doonaa wax xarag hadda kuma dhacayo waxawaaye waan gadanaynaa haddii la yiraahdo hadduu xarag oo ku dhaca xabsadu ku dhaxaatana waa gadanaynaa taas waa normal waaye waana gabdho jirdil isu geysta waana normal waaye Soomaali maalin bay ka dhacdaa waxaas normal waaye waan dadka waxa waa laga heshiiyaa laakiin heshiiska waxaa diiday habiya diiday taas faham horta habiya waxay codsatay taxal idin sheegay in maxkamadda la aado gal dacwadeedkii aan la dhahaa macnaha kiiska raalaada gal dacwadeedka aan la qabtay shalay macnaha shalay maanta macnaha la saxiixay macnaha marka anaga waxay horta u soo gaartay isla bari iyo wiigaan in maxkamadda dhexeyso no 4 maalin la qabtay macnaha kiiskooda maanta maxkamadda qalabka sida ay qabatay oo 9 bisha ah 45 minutes waxa laga rabaa inay isku soo diyaariyaan taas ma fahanteen
hadda banaanka joogtaa kashkana waxa waaye iyo wiilashas kale maxkamadooda si gooniya loogu qaadaa ayaga dambigooda waa culus yahay xukunaa ku dhacayo bistooladaas ay rideen kashku ridi iyo wiilashas kale xukun kala ku dhacay laakiin labadan gabdhood waxa waaye xukunkoodan ayagana gooniyu noqon doonaa oo waxa waaye luziino oo su'aalahaas waa la weydi doonaa isay uga jawaabayso taqaana ilaa wixii caddeynta lahaaya weerarkaas u qaadaysay marka luziino waa soo bixaysaa waa confirm 100% beri waa soo bixi doonta haddii ilaa yidhaahdo waxa waaye kadibna waxaa la geli doonaa looyarka iyo kadib xeraalihii oo habiya mataqaanaa waxa waaye asagana uu raadi doono mataqaanaa caddeemo dheeraad uu raadi doonaa mataqaanaa sidoo kale anagana waxaa loogu baahan yahay inaan isku difaacno anaga keliya waxaan isku difaaci karnaa in gabadheennii oo waxa waaye weerarka inay qaadi sax waaye gabadh inay ka gaarsiisay oo dhowr fiir ku dhufatan sax waaye laakiin in loola soo bax bistoolad oo kor loo tuuro ayadana nolosheeda halis ay ku jirtaa annaga taas waaye kiiskaas anaga cuskanayna haddii ilaah yidhaahdo kaasna waa ku helayna haddii ilaah yidhahdo marka isku soo dub walaalayaal waxa waaye wax la yidhaahdo cadaalad iyo ma jirto iyo ma jirto maanta la soo daayey gabadhan ayadaa codsatay waana victim si xunaa loo garaacay ninka arkaan aniga dadka inta yarta aad waa aragtay intiina kalena waa laydin soo gelinaya suga haddii ilaah yidhaahdo marka waxa waaye luziinana waa ku xigaysaa oo beriyaa la soo daayi doona marka si sharci waaye waana normal waaye qofku markuu dacwo jeediyo uu dhaho waxaan caddeynta waa tanaa gabadhan waxaan u samaysay in qofka loo soo qabto qofkan la soo qabto labadoodana meel lagu hayo la baaro reporter markii la diyaariyo oo qofka u codsado in galkan dacwada maxkamadda loo gudbiyo kadibna kiiskaas oo qofkan la soo daayo qofkan kale la soo daayo oo dhow meel hebel maxkamadda adduunyada sharciyaasa ka jirto puntland meel walba saas waay wallahi bacdi somaliland saas waay qofka markii la wada xiro laba maalin kadib waa la soo daynaa maxkamadda banaanka ku sugayaan taas ma fahanteen taasa waxay idin xaqiijinaa in luziino berri soo bixi doonta haddii ilaa yidhahdo